السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan kaga hadlo waxa loo yaqaan tonsillitis oo ah inuu caabuq ku yimaado quumanka. Marka haddii aad leedahay quuman xanuun, muuqaalkan waa kaaga soo dhawo oo ila lameyso muuqaalkan. Balse intuusan muuqaalka bilaabin waxaan ka codsanayaa in muuqaalkan like noo saarto sidoo kale aad ku soo biirto channelkan. marka hore waa maxay quumanka ama waa maxay wax loo yaqaan tonsilliska. Tonsilliska ama quumanka waa laba qanjir oo ku yaalo qaybta dambe ee cunaha. Qanjiradani waxay ka hortagaan jeermiska ilma aragtida ah sida bakteeriyada iyo viruska. Qanjirada loo yaqaan tonsilliska waxay ka mid yihiin wax loo yaqaan immune system ama habdhiska difaaca jirka oo waxa ku jiro unugyo loo yaqaan white blood cells oo ah unugyadii ka hortagi lahay jeermiska. tusaale ahaan haddii aad cuntay cunto wasakhaysan, labadan qanjir waxay ka hortagayaan jeermiska ku jira cuntadaas. marka waxay ka mid yihiin habdhiska difaaca jirka oo waxay noo difaacayaan jirka qaybihiisa kale. waxaan filaynaa isla fahanay qanjiradan loo yaqaan tonsilliska. haddaba muuqaalkan waxaan rabaa inaan kaga hadlo caabuq markuu ku yimaado labadaasi qanjir ama caabuq markuu ku yimaado quumanka. caabuq markuu ku yimaado quumanka waxaa loo yaqaanaa tonsillitis. si aad shaashada ugu jeedidbo sawirkan wuxuu cadeynayaa quumanka ayagoo caafimaad qabo iyo ayagoo caabuq qabo. markay caafimaad qabaan qaab noocan ay u egyihiin, markay caabuq qabaan qaab noocan ay u egyihiin oo barar iyo isbedel badan ayaa ka muuqdo. haddaba waa maxay calaamadaha lagu garan karo ama calaamadaha lagu ogaan karo markaad leedahay caabuq ku dhaca quumanka? calaamadaha lagu ogaan karo waxaa ka mid ah number 1 wax loo yaqaan sore throat oo ah inuu xanuun ka dareentid cunaha. sidoo kale number 2 waxaad isku arki kartaa wax loo yaqaan fever ama qandho. qandhadan inta badan waxay ka sareysaa 38 centigrade. sidoo kale waxaad isku arki kartaa number 3 wax loo yaqaan halitosis oo la micno ah af ur ama in neeftaada soo urto. sidoo kale number 4 waxaad isku arki kartaa wax loo yaqaan lymphadenopathy oo la micno ah inuu barar ku yimaado qoorta ama dhuunta. sidoo kale waxaad isku arki kartaa number 5 waxa loo yaqaan odynophagia oo la micno ah inaad xanuun dareentid markaad wax liqaysid. sidoo kale way jiri kartaa calaamado kale oo isku arki kartid sida qunfac, riraxyo iyo wixii la mid ah. inta badan caabuqa loo yaqaan tonsillitiska ama caabuqa ku dhaca quumanka waxaa keeno bakteeriya iyo virus. laakiin waxaa u badan bakteeriya, gaar ahaan bakteeriya loo yaqaan streptococci pyogenes. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah sidee looga hortagaa caabuqan ku dhaca quumanka? caabuqan ku dhaca quumanka waxaad uga hortagi kartaa marka hore inaad hagaajisid nadaafadda cuntadaada. sidoo kale inaad hagaajisid nadaafadda gacmahaaga oo aad gacmahaaga soo dhaqatid intaadan cuntada cunin iyo markaad cuntid kadib. sababtoo ah haddii ay bakteeriya iyo virus ay ku raacdo cuntadaasi waxay kugu keeni kartaa wax loo yaqaan tonsillitis ama inuu caabuq ku yimaado quumankaaga. haddaba haddii aad iska daweey waysid caabuqan ku dhaca quumanka wuxuu kugu keeni karaa dhibaatooyin badan. dhibaatooyinku kugu keeni karo waxaa ka mid ah wax loo yaqaan epiglottitis oo ah inuu caabuq ku yimaado xuubka dahaaro habdhiska hawo-mareenka. sidoo kale wuxuu kugu keeni karaa number 2 wax loo yaqaan otitis media oo ah inuu caabuq ku yimaado quumankaaga. mar walba waxaa fiican intuusan kugu keenin dhibaato dheeri ah inaad iska daweysid caabuqan. waxaa kugu talaa haddii aad caabuqan astaamihiisa aad dareentid inaad si degdeg ah u tagtid dhakhtarka kugu dhow si aad u qaadatid dawooyin kugu habboon iskana ilaalisid dhibaatooyinka halista ah. waxaan u gudbi doonaa qaybteena xigta oo ah sidee loo daaweeyaa caabuqa ku dhaca quumanka ama sidee loo daaweeyaa tonsillitiska. sida loo daaweeyaa caabuqa ku dhaca quumanka mar walba waxay ku xiran tahay waxyaabaha keenay. sidaan hore soo sheegaybo caabuqa ku dhaca quumanka waxaa keeni kara bakteeriya ama virus. marka haddii uu caabuqan uu keeno bakteeriya waxaa ku daweyn kartaa dawooyinka qalajiyaasha ah ee loo yaqaan antibiotics. laakiinse caabuqan haddii uu keenay virus wax dawo ah ma lahan. sidaan wada ognahay cudurrada ay keenaan viruska wax dawo ah ma lahan oo waxay leeyihiin kaliya la tacaalis. marka waxaa kula tacaali kartaa dawooyinka xanuun baabi'iyaasha ah ee loo yaqaan antibiotics. sidoo kale waxaa lagu daweyn karaa caabuqa ku dhaca quumanka in la sameeyo qalliin oo gabi ahaanba meesha laga saaro. qalliinka looga saaro meesha waxaa loo yaqaanaa tonsillectomy. tonsillectomy oo la micno ah in qalliin lagu sameeyo quumanka oo gabi ahaanba jirka laga saaro. qalliinka la iskama sameeyo
oo waxaa la maraa habab badan oo tusaale ahaan haddii uu caabuqa soo noqdo sanadkii dhowr jeer ama labadii sano uu soo noqday marar aad u badan qaliinka waa la sameyn karaa balse hadduu caabuqan uu kugu dhacay hal mar ama sanadkii uu soo noqdo hal mar qaliinka lama sameyn karo oo waxaad isticmaali kartaa dawooyinka xanuun baabi'iyaasha ah iyo dawooyinka qalajiyaasha ah balse waxaan kugula talin lahay mar walbo haddii aad leedahay caabuqan ama aad isku aragtay astaamahan inaad u tagtid dhakhtarka kugu dhow si aad u qaadatid dawada kugu habboon anigoo kaaga mahadcelinayo daawashada muuqaalkan waxaan rajaynayaa in muuqaalkan wax un ka faa'iiday sidoo kale waxaan kaa codsanayaa in muuqaalka like noo saarto kuna soo biirto channelka oo subscribe saarto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته